الشيطان الرجيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. dadka sare taagan ha fadhiistaan, dadka soo socdana socodka ha joojiyaan. ismaqal iyo kala dambeyn baa la doonayaa in laga barto majliska. waa bayt buyuudda ilaahay ka mida waxaa fadhina. masjid waa aqalka ilaahay baa loo nisbeeyaa. adab buu leeyahay masaajidku, adaab iyo ixtiraam. nabigeena moxamed calayhi salaatu wasalaam oo mambarka taagan ayuu nebigu yidhi: ijlisuu, fadhiista. saxaabadii intii masjidka joogtay way fadhiisteen. cabdullaahi bni rawaaxa radia allaahu canhu oo masaajidka dibaddiisa joogay ayaa markuu maqlay hadalkii nebigeena calayhi salaatu wasalaam meeshii uu joogay buu fadhiistay. markaabuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam uu yeedhay. markaabuu rasuulku weydiiyuu ku yidhi: maxaa dariiqa ku fadhiisiiyey buu ka yidhi cadcaadaas. wuxuu yidhi: adigoo fadhiista leh ayaan maqlee, soo inaad amarkaaga iyo amarka ilaahay qaato soo mahayn buu yidhi. markaabuu nebigu u duceeyo wuxuu yidhi: zaadaka allaahu xirsan calaa tawaaciyati illaahi wa tawaaciyati rasuulihi. dadaalka aada mar walba ugu jirto inaad ilaahay iyo rasuulkiisa aada adeecdo, allaha kuu ziyaadiye buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. diintu waa aadaab, diintu waa ismaqal, diintu waa kala dambayn, diintu waa is-ixtiraam, diintu waa isjacaylo, diintu waa iska warhayn, diintu waa isxidhiidhin, diintu waa isku naxariisasho. diintuna ka soo bixi maysa buuraha iyo geedaha iyo dhulka iyo kaa'inaadka. may diintu waxay ka soo baxaysaa waa qofka bini aadamka jirhkiisa. bini aadankan jirhkiisan unbuu khayrkuna ka soo fulaa, sharkuna uu ka soo fulaa. camalkaa bini aadanka jirhkiisa ka soo baxaya ayaa markaa adduunkao dhan markaa saameynaya. koonkan yarnaa usuran reebanka koonkan wuxuu ka cilaaqo la leeyahay koonkan wuxuu cilaaqo la leeyahay bani aadanka camalkiisa. bani aadanka camalkiisuna wuxuu cilaaqo la leeyahay qofka qalbigiisa maxaa ku jira. waad maqlaysaan soo maha? ya se aad baad u maqlaysaan. adduunkan aan ku dhex noolahay iyo aakhiraduba
waxay cilaaqo la leedahay bani aadanka camalkiisa. camalka bani aadankuna wuxuu cilaaqo la leeyahay kalsoonida qalbigiisa ku jirta. saddexdaa ma fahamteen? allah ina fahamsiiyo. hadduu qofka bani aadanka gudihiisu uu hagaago, jirhkiisa camalka ka soo fulaya hagaagi. jirhka bini aadanka camalka ka soo fulaya hadduu hagaago, adduunyadan gaaban iyo aakhirada waasica qofka bini aadanka u hagaagaysa. marka camalkaaga un hagaaji. camalkuna ma hagaagayo ilaa uu qalbigu hagaago. alaa ina fi ljasadi mudqa إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. النبي عليه الصلاة والسلام qofka bini aadamka jirkiisa xubin ba ahaatay buu nabigu yiri, xubinta haday hagaagto jirka oo dhan ba hagaagi, haday xubintaasi ay xumaatay halowdana jirka oo dhan ayaa halaabi. xubintaasina buu nabigu waa qalbiga qofka bini aadamka. qalbiguna waa meesha ilaahay adoonka uu ka soo fiiriyo weeyaan. qalbigana wuxuu ku hagaagayaa waa maxay? waa kalsoonida dhabta. qalbigu lacag kuma hagaagayo, lacagna kuma qaboobayo, lacagna kuma raaxaysanayo. qalbigu makhluuqa hadduu helo ciriiri buu sii dareemaa. laakiin qalbiga haddii cadamatullaahi ay fadhiisato, ilaahay macrifadiisu hadday fadhiisato, ilaahay maxabbadiisu hadday fadhiisato, ilaahay cabsidiisu qalbiga hadday fadhiisato, qofka markaasuu qofku qalbiga ka raaxaysanaya. idan qalbigii baa hagaagay. oo qalbigii muxuu ku hagaagay? waa kalsoonida dhabta, ilaahay macrifadiisa, ilaahay jacayladiisa, ilaahay cabsidiisa. sifaadkaasi qalbiga markay galaan, qalbiga jirhkii wuxuu soo saarayaa markaa camal wanaagsan, hadal wanaagsan, maqal wanaagsan, ficil wanaagsan. camalkii markuu hagaagana adduunyadoo dhan baa ilaahay markaa qofka bini aadamka noloshii adduunka o dhan baa loo hagaajinayaa. saddexdaasaas ku xidhan. in nolosha adduunyadu hagaagto waxa uu shardiya camalka jirhkaaga ka soo fulaya inuu hagaago. camalka jirhkaaga ka soo fulaya inuu hagaagana waxa uu shardiya in ictiqaadka qalbigaagu inuu hagaago. qalbigu inuu hagaaga ictiqaadka ku jirana waxa uu shardiya dadaalkaagu inuu hagaago. dadaal. saadarteed baa ilaahay jalla wacalaa 124,000 oo nebi oo 312 rusul ay ahaayeen, waxa ilaahay uu soo diray wax kale ma ahayn inay bini aadamka qalbigiisa ay hagaajiyaan. qofka bini aadamka qalbigiisa muxuu ku hagaagayaa? wuxuu ku hagaagayaa tawxiid, iimaan billah. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أيا إلهي بأشياء يو كله أدق هرتا إرجمان صودرا أدونك إلا هذا الرسول صودر نبا إلهي يري ذاتك وحو الرسول كاسو يري إن الله كلي العبد بس عبادة إلهي ينبى الله يقوى. waclii waxa ilaahay sokadii dadku ay caabudayaan ay haystaan ay tala saaranayaan ay nebiyadu dadka ay ka goynayeen ay ka reebayeen ay ku lahaayeen ilaahay caabudo, ilaahay tala saarta. mashaakilkan adduunyada xalkaygu waa maxay? ilaahay u soo noqo. mashaakilka adduunyada inaad ka baxda ma rabtaa? ilaahay caabud. nolosha adduunyadu inay ku hagaagta ma rabtaa? ilaahay raalli geli.
راحينات كنا لا تمربتا إلهي قرو إمام غزالي رحمة الله عليها يا أرنجري جنة الديد وإلهي معرفة ديسا جنة آخرتنا وإلهي أركت ديسا جنة الديد ومحي يا وإلهي معرفة ديسا جنة آخرتنا وإلهي أركت ديسا مركي أهل الجنة جنة أي قلان أي إلهي كو أرندنا تريدون شيئا أزيدكم شيء كلا أو إن قد من أو إن يقدر مجعشين إن نسيو مركاس أهل الجنة ورنيان ألم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجنا من النار إلهم يعني وجيال كي نو إفتيمن يوم تبيض وجوه وتسود وجوه مالك وجيال كقارنا مدوبانا يقارنا عدانيين ميانا وجيال كي أدقوا أتكي لكو إفتيما يأوعد عد ميانا الجنة هذه إله أن نقلين ميانا نار تادين ماركتاني أن نقبت بادين ما انت وحكف اللي بدن بانوها لي مرقاس إلهي أورانا يا ها فيكشف الحجاب لأن مرقاس إلهي حجاب كنسك قاضيا فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم ورسولك يري أهل الجنة هل لمسنين وحقوا قلوبك القعيلة بدنيا هاي دعوشد إلهي الداتة دي سيه وجهي سيه كمال كيساي دعونا يا الله ينقل لك قواس جنة الدويد وإلهي معرفة ديسا جنة آخرة وإلهي عرفت ديسا ربانيين علماء الربانيين ديسا سيورن جرير marka anbiyadu alayhim as-salatu wat-taslimat bashariyada waxay u tilmaamayeen meel kala qalbigiinu ku xasilimaayo meel kala ku raaxaysan maayo qalbigiinu qalbiga waxa kaliya ee deeqa waa maxay ilaahay macrifadiisa kii ku abuuray garo wuxuu adduunyada ku keeno ku abuurtayna garo aweentaas الله كو أبو رجرو ولا إله إلا الله وحي إلهي كو أبو تكادون ينجرو ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على طريقة الرسول كو عبد الله إلهي باكو كان يدونك كما دي من أدبو كما دي من يسيد أمر إلهي باكو دي من أمر إلهي بعد كنت مدي أمر إلهي بعد كنت جوكتا أمر إلهي بعد كنت سعوتا أمر إلهي بعد كنت سيحانيسا أمر إلهي بعد كنت سوكاعيسا أمر إلهي بعد وحكو أركيسا أمر إلهي بعد وحكو مغليسا أمر إلهي بعد وحتر كل هذا هي أمر إلهي نوات كل منيسا سيدا خلقك إلهي جل وعلا عدل الشيء توتر هذا أنك سميني أين الأجرين قال يا مسلم بأي قرية إنه إلهي خالق يهي كذلك أمرك الدنيا كسو عضنا إلهي حق سكي مادا مالك الأمر كمي مادا أمرك حقو كي مادا الله حقيس بدل بقى الدنيا كي كدعي إلهي بكان ضد بعض الشيء أمرك إلهي بيكون الشيء ضد بعض انتي أمرك إلهي بيكون انتين ضد أمني هيستا إلهي بأمنك كدقي ضد علادي عبس لغريدي إلهي بأقدري ضد برواقيسا برواقد إلهي بأقدري ضد أبار هيستا أبارت إلهي بأقدري نظام كان عالم كإلهي قعنت سوكو جراي قعنك لكم اجروا بل لله الأمر جميعا قل إن الأمر كله لله بيده الخير بيده الخير خير ودن قعنت الله كجرا قعنك لكم اجروا نظام كان الدون كان قعنت إلهي بكجرا قعنك لكم اجروا سقا ببدلايا مالنت سقا كينا هبيك سقا كينا جيلال کے سگا کہنا گوگے سگا کہنا کوئل کے سگا کہنا قبوگے سگا کہنا ضرورت روک کے کہنے سے سگا کہنا برواقد سگا کہنا وحلی وحا ادویada isbedel ka dhacaya waa isaga keenaya hadii la eegana isbedelka wuxuu ku salaysan yahay bini aadanka amalkiisa ilaahay eegaya
bini aadanka camalkiisa iyo lagu saleynaya haddii caalamkan dadka ku nool camal wanaagsan uu ka soo baxayo xaggooga oo ilaahay tabaaraka wa tacaala mar walba camal wanaagsan malaa'igtu ay u geynayaan adduunyadani waxay noqonaysaa janno ku sug bay noqonaysaa laakiin bini aadanka camalka ka soo fulaya hadduu camal xun u noqdo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu cadhoonaya dadna xagga samada cuquuba ka soo degaysa cuquubo laa taqacu almusiibatu ila bidanbin walaa tarfacu ila bitawba masiiba adduunyada kama dhacdo ilaa dembi la galabay ku timiday balaayo iyo masiibana ilaahay ummad kama qaadin ilaa toobaday toobad keeneen baa ilaahay masiibada kaga rafaca saadaraaddeed bay nebiyadu calayhim asalaatu watasliimaat waxay ku dadaalayeen bani aadankanay ku dadaaleen meesha bini aadanka ay kaga dadaaleenna waa qalbiga shayga qalbiga bini aadanka uu ku bogsadaana waa ilaahay macrifadiisa idan nebi kastoo adduunka yimiday wadiifadda uu la yimiday waa addacwatu ila allahi caza wajalla inuu nebi walba dadka ugu yeedho ilaahay xaggiisa waxa bini aadanku ay haystaan markaas ayuu nebi walba dadkiisa ka soo goynayey ilaahay buu ku soo xidhayay waalidu cimraan saxaabiga cimraan binu xuseyn la odhan jiray radia allahu canhuma ayaa duqi aabihii ahaa intuunan islaamin ka hor ayay qurayshi intay soo qaadeen bay u keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam oy leeyihiin adiga oday weyna oo nebi maxamed aabbihiina awowgii cabdulmutalibna soo gaadhee bal inuu adiga tala kaa qaato dhibta naga daayo moxamed kaalayoo la hadal bay ku yidhaahdeen waa markuu nebigeennu maka uu ka soo baxay dacwaddu hariibka ahayd hariibka markaasaa nebigu saxaabadii ku yidhi soo dhaweeya odayga ii soo dhaweeya soo fadhiista waa waalidu cimraan inankiisi waa saxaabi oo markaa nebigu la joogaa daartii arqam min alarqam miyuu markaa nebigu diinta saxaabada qur-aanka ku bara kii islaamayana markaa halkaabaa la keenayoo lagu islaamiya markaasuu odaygii baa hadloo yidhi yaa muxamed anigu cabdulmutalib baan garanayaa aabbayaashaa baan garanayaa laakiin dhibaatada adigu maanta quraysh aad dhex dhigtay nin qurayshyadoo dhibaatada hortaa noo keenay ma jirta buu ku yidhi ilaahyadaan caabudaynay ayaad naga ceebaysay aabbayaasheedii dhintay ahla naar baad ku sheegtay diintayadiina waxaad tidhi waxba kama jiraan baad tidhi odayadii qurayshada caqliga badnaana waxaad tidhi waxba ma fahmayaan taasaa kugu haysanaa markaa buu nebigu calayhi salaatu wasalaam su-aal buu weydiiyey wuxuu ku yidhi imise ilaah baad caabudaa adigu bal ii sheeg markaasuu uhi 8 baan caabudaa xaggay kala joogaan wuxuu 7na dhulkay joogaan midna samadu ii joogaa wuxuu yidhi haddii abaari ay dhacdo kaad baridee roobka kuu keenay abaarta kaa faydaa waa kee markaasuu yidhi waa ka samada haddii adiga dhibaata kugu dhacdo ka aad baridaayo dhibaatada kaa faydaa waa kee markaasuu yidhi waa ka samada raaxiladaadu daabadaadu hadday kaa lunto ka aad baridee kuu soo celiyey waa kee markaasuu yidhi waa ka samada dee markay dhibaata ay timaadana sow kaama baridid haa marka barwaaqada roobku do-o xooluhu dhalaan kuwanaan magacooga hilibka neefka magacooga aad ku qashaa magacooga aad ku gowracdaa markaasuu nebigu yidhi dee cibaadadaas maad cadaalad fashay buu yidhi marka dhibaata ay jirtana kaa samadaad baryaysaa marka barwaaqada ay tahayna 7dii kalead baryaysaa ood caabudaysaa ood magacooga xoolaha ku qalaysaa oo magacooga sadaqada ku bixinaysaa oo baahidaada u sheeganaysaa ood ku farxaysaa agtoodee maad cadaalad fashay markaasuu aamusay haddaba anigay dhegaysa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa xusayn waxaan leehay dadkana ku leehay allaha dhibaatadu markay nagu timaado aad baryaysaan ee tala saaranaysaan eed u khushuucaysaan ee roobka weydiisanaysaan ee ducadii eed u bandhigaysaan ee ducada u badhaxtiraysaan kaa un baan leehay marka dhibaatadana isaga keligii caabuda marka barwaaqadana keligii un caabuda marka dhibaatadana isaga un caabud cid kale ha caabudin cid kale ha rajayn cid kale ha tala saaran cid kale ha baryin cid kale baahidaada ha u sheegin mathalu aladiina ittakhaduu min duuni illaah
كمثل الأولياء اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون بإلهي وحلي وحا إلهي السكدي هذا عبود إيسان إذ إلهي كدقتين إذ كبقنا إيسان إذ باهيدين أشيغنا إيسان إذ بري إيسان إذ تلسارنا إيسان بإلهينا ليهي دقيست بشرية عالم كودن أي إلهي الله الله قرآنك هو كلامك إلهي قرآنك هو بيانك إلهي بيانك إلهي بشر ودقيسو وحلي وحا إلهي كسكية إذ إلهي مود إيسان العبود إيسان وحبال العنكبوت وأقلك عارضك لويا أقلك عارضه ضبيلنا كما عليو روبنا كما عليو إيش عدونا كما عليو والله أركا يدو نحفظنا يعني وحا إلهي غيرك لقد تعلق سيهم مانتا إلا بريايو إلا قبقنايو إلا تلسارنايو وحوبك عارضه ويحوبك عارضه تغلق قلو oo la dugsadana ba ilaahay yiri waa aqalka ugu liita aqalkaas aqalka carada aqal la dago ugu liita ba ilaahay waxa ilaahay ka soo haro oo dhan hada tala saarataan oo baridaan oo baahidiina u sheegataan oo ka cabsataan oo ku baqataan waxaad ka dhigan tihiin xoob caradad yiri roob iyo dabayl iyo dhaxan iyo cadcad ka dugsanayna maka celin maayo كما علينا برواقنا حتى تكون جرتنا إلهي كل شكري بلاي مصيبة حتى يتمادنها أرققحني إلهي بري عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيري نيجا مؤمن أرين كسودا وأرين لياب لويان أرين كستو وقف مؤمن الله سودر سا مؤمن خير بكدفا مؤمن كأمان أرمها إسكله واسد النبي الله نوشك وقف مؤمن كإيمان كله هذا دباتا يكون على هو أتكستا والصبر أجر يا خير بالله قريا هذا برواقة يبرر الله كل منا والشكرية أيضا أجر بالله قرا ومنكم سوى ومعاش سوى ومعاش هدو بكودر ومعاش هدو قاجود ومعاش هدو أباري كل عدو وكمعاش هدو أولادي كل سودرست وكمعاش هدو أمني لهيسي وكمعاش هدو عافمات لسي وكمعاش هدو عافمات كاللغنا غصة وكمعاش هدو أوبتكو هقاقان وكمعاش هدو أوبتكو كبان هذا والصبر يو وكمعاش ما لا قصد مؤمن يقول نلوشي خسارة هدو السفر يا قصد مؤمن يا هدو حنو سبب رسولك يري ملائكة إلهي كوير هذا هدون كي أمركو مقيم كاها يمركو عافمات كقبي عمل كيو قبل جري وحبها كنا قصنا أقرب إلهي ملائكة كوير هذا مرقا ما خسارة مي معاش ما أرجع بحفظ مسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وحو قدنتي في طاعون عمواس في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه السقي أبا عبيدة عمر وحو اسكدي إنه حنوك طاعونك كبت باديو وهي قرب بيوهايان أعيد هذا المي ما شاء طاعونك كل عيك بحمينه نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيها يري ميلا جوتان هدو حنون كاسي وكل عبو نبي قولها كبحنا ميلا دو السعوتان هدو المقشان حنون كابا كجرين هقلين أبو رسولك يري ترقى كما بحيبي ميلو حنون كطاعونك وكد عيبو نبي قولها هداد جوتان هكبحنا وايو هداد كبحضو وإلهي كابت باديو لغا يابا هنا ترادد بحدا كسو بحيبا كبت بادي أما مارك تاني حنون كان أديك كهيينا لغا يابا أمتك لإنو قادو
xikmadda buu nabigu yidhi halkiina joogo qadarka ilaahay aamina qadarka ilaahay ma laga farxi karaa may lagama farxo yar soo fadhiisiye hal soo dhow halkan fadhiiso bas ku salliya rasuulka Mucaad bin Jabal radiyallahu anhu marka khudbadii buu fuulay jumcada inankiisii Cabdiraxmaan taa'uunka ku dhaco uu jiifa waa sakaraad markaasuu markuu khudbadaynayay ayuu yidhi alaa innahaa raxmatun min rabbikum wa dacwatu nabiyyikum wa qabdatu saalixiina min qablikum allahumma adkhil aala mucaadin nasiiban min raxmatika buu ku duceeyey dadkii muslimiintii buu tarqiibiyey ha argagixina buu yidhi ha argagixina xanuunkan taacuunku waa raxmad ilaahay xagga rabbigiinni niiga timide weeyaan waman maata fi taacuuni fa huwa shahiid buu nebigu yidhi ninka taacuunka ku dhinta waa shahiid buu rasuulku yidhi markaasuu yidhi Mucaad binu Jabal xanuunkani waa raxmad rabbigiin xaggiisa ka ahaatay weeyaan waa ducadii nebigiina Muxamed calayhi salaatu wassalaam waa qabashadii dadkii saalixiinta inaga horreeyey markuu ilaahay adduunyada uu rabo inuu ka qabto xanuunkaasu u keenaa iyagoo sariirahooga dul jiifa ilaahay shahaado u qadaraa markaasuu ducaysto wuxuu yidhi ilaahu raxmadan ala Mucaad binu Jabal reerkiisa ilaahu raxmadan soo geli buu yidhi khudbadii markuu ka dhaadhacay uu salaadii dadka tujiyey inankiisa Cabdiraxmaan buu markaa u tegay oo sankaraada markaasuu u tegay isagoo naftu ay ka sii baxayso Cabdiraxmaan wuxuu yidhi dhegayso yaa abati buu yidhi aabbo alxaqu min rabbika falaa takuunanna min almumtariin xaqu xagga rabbigaabuu ka ahaadee kuwa ilaahay amarkiisa ka shikisan ha noqon buu ka yidhi Mucaad binu Jabalna wuxuu yidhi satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin kanna aayaddan uu isku akhrinayaa kana aabihii buu aayaddan ku akhrinayaa Cabdiraxmaan ayaa dhintay maalmo kadibna aabihii Mucaad binu Jabal baa ka daba tegey mu'minku dhimashada muu ka baqa kama baqo mu'minku ilaahay keyrkii kama baqo mu'minku keliya wuxuu ka baqaa mu'minku macsiyaduu ka baqaa lanna macsiyadda ilaahay caradiisii baa ku dhex jirta saxaabadu kamay baqayn xanuun makhluuqna kamay baqayn cadowna kamay baqayn gaajana kamay baqayn faqriya faaqana kamay baqayn abaarna kamay baqayn waxaa keliya ka baqayeen waa macsiyay ka baqayeen nin saxaabiya ayaa waqti dahiira magaalada Maka magaalada Madiina xilli dahiiro dhulku kulul yahay ayuu magaaladii soo dhex maro inan yar oo qurux badan buu arko markaasoo qabsado iska dhudhunkaday wax kale kumuu samaynin markuu uu ka dhaqaaquu sii daayeyna uu seexan waayo ninkii dembiga uu sameeyey waa dhunkasho keliya markaabuu u yimid rasuulkii yaa rasuul allah inan yar baan dariiqa ku qabto waa dhudhunkaday wax kalena kuma samayna allah igu oge xadka aniga hallay mariyo markaabuu nebigu aamusay ila shareecaddu markaa kaamil maahayn kolba in baa shareecadda soo degaysay kolba inta ummaddu ay iimaankaygu ziyaado ayaa axkaamtii shareecadduna ay soo degaysay markaasuu nebigu aamusay wuxuu yidhi fadhi waan sugaynaa xukunka ilaahaye markaasaa ilaahay soo dejiya aayaddan qur-aanka waaqimi الصalaata طarafay الnahaar wazulafan min alleyl ina alxasanaati yudhibna الsayi'aat dalika dikraa lildaakiriin salaada shanta waqti ooga baa ilaahay yidhi gafafka yaree inaga dhacdhacay khayrkaa aad samayseen ee salawaadka aad ka helaysaan salaadaha khayrka aad ka helaysaan baa ilaahay ku kaxaya oo ku masaxay markaabuu saxaabigii baa yidhi ali haada yaa rasuul allah markaasuu nebigu war ninkii awey hebel waa kan aayaddii buu nebigu markaa baruu ku akhriyey ali haada aayaddani maalin keliya ii soo degtay markaasuu yidhi may ummaddeedoo dhan baa aayad u soo degtay buu rasuulku yidhi dembigay ka baqayeen asxaabta innagu maanta dadka zamankan jooga afcaashii ilaahay ka xaraysiinaysay ka baqi mayno laakiin waxaan ka baqaynaa xanuun yar oo hargabaa laga baqayaa caalamka o dhan maanta hargab buu ka baqaya hargab macaasidii baa meel walba taalla
ظلمي زندي فجوركي فسقي قالمدي فسادكي بأدون قد المانتا ساميي لا أرن ما يعري لها يبا صوصعتي ولا قيلي ماي ولا دواقي ماي ولا أوي ماي بل وحالك بقى يا حنون كاير بأدون قد قادي أغل الذين اسكو حرا وما موتك ما قلبك قدين أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ما الشاطون تبا كجر موتك سقا خوصة قال يبا كما هذا يبا لقد بحصدوا نبي الله داود عليه السلام وأبين هبين لك من أقل قيسة دح جوغا أيها أركنين دارات دح سعودة مركز سوري ورقل حلقات كسوق شيء دواني كسوق لي دح جوغا يا أخو إذن وحولي ملاها يما قرنيس اسكو كي شيء بقرد وأقلد أي سميستين إذا مدو أي ديكتين كبلا فصحة كسوق لان هاي بودانو بالفرس مركز سوري ها وانكو قرتي بودي وملك الموت نعم مزيارة دي قلت مدينو يري نس عمر بعد سيداينا نفتا يقبطو ما يا عمر بعد سيدا وساعدي ما كان دماتي ولي بوحا ليسي خيار سي نبينا دي بشدد وخيار ويان وخيار خيار استيقى سيو نبي داود هدو دونا دوية كالسوقات هدو دونا دوية ودا هسك جوغي مركز سوري مساساها هنود لكو لك إلهي وان جعلها نفتا يقبط بكي يقول لك إلهي مؤمنك وجعلي هي من أحب لقاء الله كره الله لقاءه أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه مؤمنك إلهي وجعلي هي عملك إلهي والله ارتقي وجعلي هي عملك آخرنا كبت دالي يبو جعلي هاي ما دام مؤمنك إلهي لكل كيس وجعلي هاي عملك آخرنا بدبادنا ينو جعلي هاي إلهينا عبدونك لكل كيس هدو طول وجعلي وعد من يسيان لكوك عبسين لما شدوا وعود الله تيبا ورمينا من هلا تاود الله تبصيرا دمت بل لكي لينا الدنتان ود الشوق عند تاك خلاص لماذا تخاف لماذا؟ لا تقدم مشهدك بقايا مسلم كما هلا ضاني ما هي مسلم كوني بشك بقى سكوارك ماذا هذا مسلم كي قال المهم يا شنجركا هي كوغا كنت شنجركا سكوارك ما شنجركا هذا كتر على ياكو ابوري وعو قران الهي يا ابوري شنجركا هذا كتر على مدمن سوال نولان وان دمن يا عمر قاعد يمتى حكيت جيسا آخر أنت يا أبو كورم وصدامة نين كنت تنجرن مالين دعوسية نين عبدانا مركز سوير وحنا أتكلم ليس ما فهم يقول مركز سوير بروس وقابيو وحين أياكو أبو راديكا وعلى هو يدي بعد الشيء يا دلي مركز سوير هو يدانا يا دلي هو يدانا يا أبو ري مركز سوير هو يدينا هبرون بعد الشيء ومن كنت جرا وركيسي وحو دافوا يعني هبر بايد الشيء هبر تانا هبر بعد الشيء مركز ما دمن مسوى نولان مركز وان دمن لمشهد كتب حقيت تجي ما قرر يوربلا تجي أباين يمشيجن ويرين يمشيجن جامع عدهنا اللي يقوم دقيق مريد مشهد وحكى دمبي كنت جر كوغا شنجير كينا كمستوى صريعتين مسلمين وحفاهم ايام شنجير كينو ماشو كيمدو يقانا ماشو سعدو يقانا الله كينيبو يقانا وجدد الله كينيبو يقانا وهذه شنجير كينو هلو تربية صح marka adduunyadan ilaahay baa iska leh ilaahay baa isaga ka taliya isbeddelka ilaahay baa keena ki ilaahay ciiseeyay cid ma duleyn karto
kii ilaahay hoos u dhigana cid ma kor u qaadi kari mayso kii ilaahay nolosha uu qadaro cid ma dili karayso haddaa tiraahdo makhluuq baa wax dilaya sifaadkii ilaahay lahaa ayaad makhluuq u nisbaysa almuhyi waa kuma المحيي وكما المميت وكما العليم وأيو الخبير وأيو السميع وكما البصير وكما صفاتك إلهي بالعتك له شيء صفاتك إلهي أدى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صفاتك سقالي سقاشك مقع إلهي مقع كستي معنى عجيب ليه معنى عجيب ليه مقع ولد معنى كفرية برقى صفاتك إلهي وليهي مخلوقها النسبين كواحد لوا إلهي كواحد نولي وإلهي كأرزاقة بحية وإلهي كأمنك كان وإلهي كأمنك مركو دون الرفعان وإلهي ما شو دون أمنك دقيا ما شو دون إلهي وحوك دقيا عبسي بكل دعان أمر كيسي قال ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدح بقل الصنو أيو يروح سمينا يا الجنة يا الدويدة صدح بقل الصنو الذي سيالي مقالة داس نبي هود بقور ما ركتاني جنة مرقى سويري أنا الجنة يا الدويدة كل سمين وعلى البغلية اللباتن كن أو مهندس مقالة البغلية اللباتن كن أو إنجينير أي كشغين يسو إيه مسا شغالة كون شغين البغلية اللباتن كن أو إنجينير قصور قصر وقصر وكب روح بنا الدوير آية الله قد يسي مرقى سورة جنة معانا لها بساطين قيد بقيد في الدوير وكمل معايا هيكون باربوي الله قبار والضويكي سمايا قبر بقبر يا الدوير كب روح بنا تاين السوق هذا كل ذا يقول وحور عينتي بل بني آدم كبر كيسان إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد قراك إلى هيكو شيء وحال يري قصورتي وكابر قصورتي وان لسه بساتينتي وانيقا سميه بولي حور العينتي وانيقا كيني بولي دمر كي أدوده قو قرح بدنا وعلى القبردو طبق انتي مدحا كوكا دبا ليلي فاروقا أيا قيدا الله اسم رئيسي أيا دون قعنتي دا مراها كسوقوين أيا تمرت إيا مراها بسرالي طبق دوشي دي كوهو من إيان بالي صدح بقل أو سراني مقالة ولا دساي markii la yiri boqorkii loo tagay la yiri muftaaxa kale naga taqabal muftaaxa naga qaad waan dhameeyna jannadii waan ku dhameystirnay ilaahay jalla wa ala uu eegaya malakal mawd waxa amar lagu siiyay lugta midig markuu jannada uu sheeganayo uu la galo tabidix intuu san la galin nafta ka soo qabal lagu yiri hada huwa albashar bini aadamku waa qadarkiisu lugtii midig markuu sidaa u galiyay ayaa ruuxda laga qaada gabigiisiida jannadii adduunka uu ku sameeyayna dabayl ilaahay intuu soo qaado ku qariyo gabigeegiiba waa halka rubc al-khali baa la yidhahdaa waaba la qariyey ba magaaladii dhanay warkoonkan ilaahay baa ka taliya isbedel haddaad aragto xanuun baa isbedel keenay ha odhan yaa keenay ilaahay baa isbedel keenay xanuun baa wax dila ha odhan haddaad muslim tahay ka xisho وأنا أدري أمر كلا بقف قول أمر قول أنت ساعد هذا دم ما توضي مرة كتير دونك ما الليلة هاي وحكتك النبض ما الليلة هاي عكسب وكل ذا شرط معها إن أفدوا بيده ولا يجاد مي نبي الله إبراهيم عليه السلام ضبك الله شذا يسقوا أركيا أي نبي إبراهيم ويري مي وأحبا أن ضبك ليك قادم أي إلهي من هيستا نفع فعالية المخلوق إبراهيم عليه السلام وحود ديدي ومسحي إنه مخلوق أوض لا يهي كلقي
wax ku sameyn karo waxna ku bedeli karo حتى جبريل وقرقار ويمي ديبولي مي يا إبراهيم يا جبريل مي ما أنت أديك مي ربي قيس ما أنت كمان مرمي يساقا نبحنا هيبولي نبكي بيكتورين إلى هاي الجنة وقردك وقمدقين ديمو قبا مركا دبك إلا بني آدم كيشي سوحا إلى دبك وحبوب قبا لكن نبي إبراهيم يقين في سوحا إلى هاي مي دبك ريلو عنيك يقبو أمر بو بحيحي ماشي عمركو كي مني أنا نقول علاقة الله بس قالوا ما سوى دوان كلام لكن إبراهيم عليه السلام طبقا دحل دوس كده حجرة أسباب النجاة إلهي بحي كو دونوا إلهي نبت جلين كو دونوا إلهي هلاقي كو دونوا إلهي عزين كو دونوا إلهي دلين كو دونوا إلهي غني كدقي كو دونوا إلهي فقير كدقي كو دونوا إلهي هديني كودونوا إلهي هالله قل اللهم مالك الملك ويان الله ويان الله مروا بيسقى الدويرة كتلي تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء نظامك عالم قدام باس بدل ما انت عالم لا طائرات تتحرك ولا ديار لا دقاقايا ولا يرى بوردي باشقينيا ولا مراكبتي باشقينيسا ولا مقالويك عاصمتي باشقينيا عالم قدام واشتاق أقل كاغا نور بفردي بالغوي يا كويري إلهي باكويري إلهي وحصوص على كوين وغو وحلقوا تصيني واحد دنبيا كوين واحد دنبيا نبي محمد ونور شيغي هذا عقلنا شقينيو وقلبنا شقينيو ونعبرك قادنينو آيات كان نركينا ما انت وحصوص سعودية بيدا يمن دون كوين وحصودا مركا كون كان إلهي كبر قدرت إلهي كدح برو قدرت دي بشغينيس مداري مد قابن مد هذو قابن بمدكوير آيات باتي مركا سيرا أنا آيات بانا ها أدو آيات دير باتي وسر كيني dadku moogtay wax cajiib la yaaba qof gaaban buu arkay wala yaabeen kii gaabnaa maxaad iga eegaysaa te aayad baa tahay oo inuu aayad baa tiiri war maalintu waa aayad oo dabeeluhu waa aayad oo badda halka la joojiyo waa aayad oo roobka dacaya waa aayad oo nolosha dhimashadu waa aayad oo farxad iyo murugtu waa aayad oo amniga iyo cabsidu waa aayad isbeddelka caalamka allah baa keenay cid kale ma keento يعني إيمانك أجي قلبك أجي لقال لحين إلهي وعليم وحمانت في هذا كجرا استجا باؤم وخبير وياك وحيمن الدنيا صوص عضنا استجا مويا رعتك لما تقام وعليم خبير وبصير وسميع بصير وحدوك جوجا استجا عركايا استجا مغلايا هذا مخلوق مالس كوكو صباحا وإلهي أي بريان وبريدوده باهيدوده إلهي وشيكتان هذا الككل إلهي كان حق لي مايو بلوغ فرس سمعك إلهي لو قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيض إذا أدخل البحر إلهي حديث القدس هذا يميل بنانس وقصة وضبحان ويبنانيس الصوت تاغان بني آدم كودر ومد والبا إلهي أي ويديستان وحي دون أيام جيني إيسي مخلوقات اسكوي مادام وإلهي أي بريان مركو ورسو حادو قاتا هذا الككل إلهي كده حق لي كريم عيو مد والبا ومغليا هذا مد والبا بايدي سيتون مغلو وم بريدي سيتون مغلو أم بايدي سيتون ولا إلهي يري وحي دونين عوض السيانة خزائنت إذا خيرك كجرا اسمد ما يبا إلهي يري سيدا إربط بدلقلي وحبه قدمي مخلوق ودن هذا اسمي مادام وباهيد وذا إلهي وشاكتان وجنة إلهي ويديستان وإلهي وحي دونيان أي ويديستان وحي دونيان هذا وذا السيابة إلهي يري خزائنت إذا خيرك كجرا سقيم مايو
sidoo irbad bad la geliyo waxba ugu dhimay ha argagixin ilaahay baad haysataa ducaad haysataa duco qur'aan baad haysataa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam mucjizadii nabiga ilaahay uu siiyey nabigu lama tagin oo ma qaadan bal nabigu ummaddiisu uga tegay mucjizadii waa qur-aanka muusa calayhi salaam mucjizaadkiisii way raaceen ciisa bnu maryam calayhi salaam mucjizaadkiisii way raaceen ibraahim calayhi salaam mucjizaadkiisii way raaceen laakiin nabi maxamed mucjizadii loo soo dhiibay waar muu qaaday mise uu ka tegey oo dhowga tegey waa qur-aanka limaada tajzac maxaad la argagixi marka jibriil calayhi salaam isagoo ag fadhiya buu nebigu samada ka maqlay shanqadh yaa jibriil waa maxay shanqadha horowman maqale markaasuu albaab samadu ay leedahay maanta la furay maanta ka horna albaabkaa lama furin malag baa ka soo daadegay yaa jibriil yaa muxamed malagani maanta hortay arlada muusan iman malagii baa nebiga salaamay abshir binuurayni uutiitahumaa yaa muxamed laba nuur baa kuu sidaa oo ilaahay adiga ku siiyey adiga hortaana nebi la siiyey ma jirto labadaa nuuri waa maxay waa suuradda faatixada iyo khawaatima suurati albaqara xaraf ka mida ilaahay kuma weydiisatid khayr adduunyo iyo khayr aakhiro ilaa ilaahay ducada waa kaa aqbalaaba nabiga lagu yidhi suuratu faatixa iyo khawaatima suurati albaqara xaraf ka mida ilaahay kuma baridid khayr adduunyo iyo khayr aakhiro ilaahay kuma weydiisatid ilaa ducada waa laga aqbalaya ibraahim aladham raxmat ullaahi calayh isagoo doon la socda doon uu seexday markaa ayaa dadkii ninkii doonta waday baa dadkii ku yidhi dabaylihii baa yimid oo dabayshii baa kacday oo baddii way kacday markaa doonta maamulkeygii gacantayda aniga way ka baxdee nin walow sidaad ku badbaadi aday ku taallaa buu yidhi dadkii doonta la socdee ducafada ahaa way argagixeen markaa way argagixeen dumarkii ubadkii ducafadii dabaal ma yaqaanaa meesha la mari waa badweyn weeyaan nin markaa sheekh ibraahim aladham yaqaanay baa kiciyo yidhi yaa sheekh alaa taraa maa naxnu fiihi maad arkayn dadku waxay yaqiinsan inay halaagsamayaan dadka ilaahay u bari hal mar keliya cimaamaddii intuu iska qadu samada eegay yaa rabbi araytanaa qudrataka fa arinaa cafwaka buu yidhi yaa rabbi qudraddaadiina tuste cafiskaagina na tus buu yidhi addoommahaagii manaysaga ya cafi labadaa kelmadood buu yidhi bas dabayshii ilaahay waa joojiyey doontii ninkii naaquudigii gacantiisa xarkay ku soo noqdeen nidaamkii oo dhan baa ilaahay bedelay mar keliya markaasuu isaguna goyisii qaado iska seexday halkiisii yaa rabbi qudraddaadii aragne cafiskaagana dee na tus buu yidhi addoommahaagii baa nahe caamilnaa bimaa anta ahluhu walaa tucaamilnaa bimaa naxnu ahluhu war sida dadku maanta ay yihiin haddii ilaahay nagula tacaamuli lahaa adduunka inaan joogno maanta xaquma yeelanen daqiiqad laakiin waxaa ku joognaa ilaahay cafiskiisa ilaahay dulqaadkiisa ilaahay raxmaddiisa ilaahay karamkiisa ilaahay fadligiisa ku soconnaa maanta inagu ilaaha kariimka ee raxmaanka ee raxiimka ee haddii mu'minku qalbi khaashica hadduu ilaahay ka baryo hadduu ilaahay ku baryo ilaahay ducadiisa waa aqbalaa daaway aaway dadkii ducadooda ilaahay aqbalayay maanta caalamka hum magaalada madiina valcon baa ku qarxay valcon buur dhan baa dab ka soo baxay khilaafadii cumar bn khataab dab socda cumar meel kale ma tegin masjid buu soo galay mashkilada hadday timaado saxaabadu masjidkay gelayeen nebigay ka barteen kaana idaa xasabahu amrun fasaca ila asalaa
hadday nebi maxamed dhibaata la soo daristo meel kale nebigu uma argagaxayn salaaduu nebigu geli jiray markiiba halkuu geli jiray caaisha radiallahu canha waxay tidhi hadday nebi maxamed dhibaata la soo daristo meeshuu ku tukanayay buu nebigu markaaba istaagi jiray salaaduu buu geli jiray yaarayta maanta hadday muslimiintu mashaakilka yare caalamka maanta laga sheegaya basiidka hadday salaada tukan lahaayeen oo masaajidda camiri lahaayeen oo qur-aanka akhrisan lahaayeen oo sadaqada bixin lahaayeen oo ilaahay baryi lahaayeen oo ay toobad keeni lahaayeen oo gaaladana ku odhan lahaayeen soo islaama waad nabadgalaysaane mashkiladda caalamka taala ilaahay waa xallin lahaa mar keliya innii la ahamu biahli alardi cadaaban faida nadartu ilaa cumaari buyuuti waalmutaxabbiina fiya waalmustakfiriina bilasxaab saraftu cadaabii canhum waxaan ku hamiyey baa ilaahay yidhi khalqiga arlada jooga inaan cadaabaan ku dejiyo saddex markaan arka baa ilaahay yidhi kuwa masaajideeda camiraya kuwa aniga dartee isku jecel kuwa habeenkii saacadaha dambe intay kacaan dembidhaafka ay weydiisanaya saddexdaa markaan arka baa ilaahay yidhi cadaabkii adduunyada waan ka celiyey baa ilaahay yidhi masaajidkaa lagu soo ordaa masaajidku nebigu geli jiray markay dhibaata la soo daristo musallihiisuu tegi jiray halkuu ku sumaysan jiray cumar binu khataab masjidkuu soo galay ayuu doondoonayaa tamiim addaari buu raadinayaa tamiim addaari radia allahu canhu ardaa cumar waxa uu raadinayaa raggii nebi maxamed uu tarbiyadeeyey raggii ilaahay xidhiirka la lahaa buu raadinayaa qum yaa tamiim kac xaggee tega qum ila annaar volka buur dhan buu dab ka soo baxaye oradoo dabka ummadda ka celi buu ka yidhi harga maaha buur dhan baa intay sidaa u qaraxday dabku saa uga socda dabkaa celi oradoo yaa amiira almu'miniin man ana anu ayaan ahay buu yidhi maa ana waman ana markaasuu cumar yidhi laysa man yaraa kaman lam yara ninka wax arkaya iyo idinkaan wax arkayn may siman yihiin may oradoo soco buu kay amarka qaado meel kale tamiima tegine maradiisii intuu qaado dabkii sidaa u celiyo dabkii waa balqoon maxaa tirahda burkaan ya volkaan ama burkaan gacan cimaamadiisii buu ku celiyay cimaamadiisii saas iska soo noqday ilaa masjidkii rasuulka innaguna maanta xal waxay ka raadinayaan muslimiintu sida gaaladu samaysay samaynayaan hayse salaamina hayse ziyaaranina sida iyaku xalka u raadinayaan ha u raadin adigu muslim baa tahay isku caqiida ma nihinba maba nihinba isku aragti 5 jirkeenna iyo 50 jirkeenna kala sarreeya waanigii inii sheegay qisadii 5 jirkeenna ayaa 50 jirkooga ka mustawa sarreeya xagga iimaanka iyo caqiidada xaaskaga dhow xalku inaku waxa uu noo sheegayaa in dadku ilaahay u soo yaacaan fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin fafiruu xaggee loo ordi marka xagga ilaahay u soo orda xagga masaajidda u soo orda xagga qur-aanka u soo orda xagga ducada u soo orda xagga diinta u soo orda toobadda u soo noqda ilaahay u soo noqda ilaahay u toobad keena maxaasida ka soo dhex baxa fafiruu ila allah firaar waa maxay waa ninka cadow eryanaya siduu u ordoo kale u soo orda weeyaan nin baratamaya sharab lacag loo dhigo la ninka soo badiya lacag buu qaadan iyo ninka libaa xiriiraya nafla caaridka ma isku orda midkii orad badan labada bal sheeg ninka baratamaya iyo ninka libaa xiriiraya ilaahay wuxuu yidhi fafiruu ila allah innii lakum minhu nadiirun mubiin wax kale lagu badbaadayaa maanta caalamka ma jirto war iska daa muslimiintii gaaladii baa kule maanta meel loo ordaa ma jire
xagga islaamka loo yaco gaaladii baa kule muslimiinay masaajida ka eedaama oo tukada oo noo duceeya oo ilaahayna barya oo la tukada gaaladii bay kuleeyihin madaxdoodii la tukada muslimiin acmaal baa loo baahan yahay markaa in loo soo noqdo acmaal cumar bin khadaab tamiim daari buu kiciyey burkaankii dhannaaya soo baxay tamiim daari baa gacantiisa ku ceshay ducadooda la aqbalayay ducadooda la aqbalay lahaayeen dad ilaahay u dhowbay lahaayeen kelmad keliya hadday ku alla baryaan intaasaa ku filay ducadooda dhanba ducadii ambiyada qur-aanka ku taalla rabbi innii massaniya duru wa anta arxamu araaximiin ducadaas noloshii nebi ayuub eesaa u badishay min taxti ilaa fooq ciyaalkiisii baa ilaahay u soo ceshay arsaaqadii baa loo soo ceshay caafimaadkii baa loo soo ceshay noloshiisii buu mar labaad bilaabay rabbi innii massaniya duru wa anta arxamu araaximiin dacwaadkii ambiyadu ay ku ducaysteen ayaa qur-aanka maanta inoogu taalla laakiin awaka yaqiintii iyo kalsoonidii nin xerow ah nin sheekhu markaa darsi ka marsan jiray baa la yidhi bay nin sheegay qisada soo iska daaya ninkan waa ummi mana akhriya mana qoro laakiin waa saamic fiican oo sheekhu dhegta ka dhegaysta maalin maalma ninkani cilladuu leeyahay waxaa ka mid a baa la yidhi carab jabaquu leeyahay muxuu leeyahay yaa xayu ya sheekhii baa yidhi ismullahi alacdamka anu waxaan u malayn buu yidhi inay tahay yaa xayu yaa qayuum adeero kaamera lama ogola dee meeshan iniguna waa iska daawanaysaan war meesha riwaayad maaha waa masaajid ya sheekh dhegaysta hadalkan yaa xayu yaa qayuum qur-aankana way ku taallaa waana ducadii nabigeenu ku ducaystay fii khaswati badr yaa xayu yaa qayuum biraxmatika nastagiif habeenkii oo dhan bal macrakadii dagaalku markuu socday nebigu sujuud saajid buu ahaa ducadaas ku celcelinayay marka ninkani ummigu sheekhiibuu ka maqlay kelmaddan ninkan waa ummi laakiin carab jabaquu leeyahay yaa xayu yaa qayuum ma karo wuxuu yidhahdaa baa la yidhi yaa xadu yaa qaduum wuxuu yidhahdaa yaa xadu yaa qaduum yaa xadu yaa qaduum yaa xadu yaa qaduum wallahi sheekhi maanta cashar cajiibaan ka soo faa'iiday buu yidhi meesha uu ninkani darsiga uu sheekha uu ka dhagaysto iyo meesha uu ka yimaado waxa u dhexeeya tog baa socda tog biyaa markaa daa'iman qori yar ama doon yar waxbuu kusoo tallaabaa baa la yidhi markaasuu kelmaddii buu yaqiin u qaatay uu yimiday qorigii ma dodoonin maanta qorigii uu iska tuuray doontii yaray yaa xadu yaa qaduum uu tallaabsadaa mar keliga uu soo tallaabsadaa wallaahi buu ihi sheekha cilmiga ilaahay iga siiyey waa inaan maanta marti qaadaa isagii xertiisaba waxaa la yidhi neef geelu uu qalay baa la yidhi sheekhow hee khayr allah ku siiyo haye allah ku siiyo maanta adigii xertuba hee qadada maanta anaad igu qoran tihiin waxaan kaa faa'iiday ilaahan baa qiyaasi kare marxab siduu u soo waday baa la yidhi waxay yimaadeen webigii dusheedii markaabuu sheekhii baa yidhi dee doontii aawayo markaasuu yidhi doon ah yersug buu yidhi yaa xadu yaa qaduum xaggaa buu u tallaabay markaa buu yidhi macallin soo soco hee markaasuu sheekhii baa yaabay markaa noo soo noqo bal horta adigu markaabuu u soo noqday baa la yidhi markaase xertii baa la yidhi bal mid ka midaa yidhi macallin malaha sidan isaguu leeyahayba ayaa maqbuula yaa xadu yaa qaduum markaa sheekhii baa yidhi war may
lafdigu waa sidii annaku aan u leenahay weeyaane sida isagu u leeyahay ma ina ninkan carab jabab u leeyahay laakiin ninkan maqaam buu gaadhay wuxuu gaadhay misaalkeenu maanta ninka waa caynkaas ducooyinkii nabiyadu ku ducaystay quraanka ma ku taala mise kuma taala ma ku taala ducooyinkii nabi maxamed uu ku ducaystay ma inoogu taala xadiista mise kuma taala laakiin awo yaqiintii maanta jamaacadadan baakistaaniinta waxay yidhahdaan markay bayaanaadka jeedinayaan baysabera yaqiinka mzuurhe bay yidhahdaan walaalayaal bay yidhahdaan halka maanta ummaddu ay ka dhaawacan tahay waa yaqiin mashaakilka caalamka yaallana waxaa ka badbaadaya maanta nin ilaahay ku xidhan bas war xataa dajaal buu nabigu sheegay inuu imanayo saxaabada nabigu dajaal wuxuu uga digay si waxa ay moodeen inuu berri soo baxayo mulkiga dajaal uu la iman doona caalamka ninka fashalin doona waa nin iimaan loo yaqiin la weeyaan markuu madiinat almunawara markuu dajaal duleedkeegisa soo taago makiya madiina dajaal ma galaayo inaguna maanta bacteria galaysa maanta muslimiintu leeyihiin bacteria ma galaysa makiya madiina dajaal baana gelin iska daa wax kale inay galaan dajaal baa laga ilaaliyey oo malaa'ig baa ka ilaalinaysa oo acmaashii nabi maxamed baa yaa ilaahay aqbalay dajaal markuu magaalada madiina yimaado dadka adduunka oo dhan baa la socdo raacsan uu ka soo dhaadhiciyay inuu rabbi yahay isagu rabbi nin mu'mina oo iimaan loo ilaahay ku xidhan baa u soo baxaya oo ku oran doona aduu rabbi ma tihide masiixu dajaal baa tahay adigu masiix baa tahay nabi maxamed baa noo kaa sheegay markaa buu dajaal leeyahay may anu rabbi baan ahay rumeen may kuma rumaynayo masiix baa tahay oo nabi maxamed baa noo kaa sheegay kaafir baa tahay ummadda habaadiyeyn markaasuu minshaar intuu qaata baa la yidhi dajaal ayuu ninkaa laba u kala dallaacinaya buu rasuulku yidhi markuu laba u kala dhaco odhanayaa idankayga iskugu noqo markaabuu isku soo kaciyo isku soo noqonayaa markaasuu leeyahay waa anigaa ku dilee ku soo nooleeye irumee markaasuu leeyahay may inaad dajaalkii dhabtaca tahay kalsooni baa iga kaa ziyaaday buu leeyahay bal mar labaad waa kaas idil haddaad nin tahay buu haddaad rabbi tahay bal mar labaad idil waa kaas waayo nebigaa sheegoo yidhi mar labaad ma dili karaya buu rasuulku yidhi ninkaas halkaabuu dajaal mulkigiisu ku fashilmaya haddeetooda wixii dad raacay oo dhan baa odhanaya dee dil ma dili karaayo dee waxaa tahay ma jira nagtaga baan odhan wadiga dili kari waaye markaasuu mu'minkii leeyahay wari rumaysta yaa muslimiin toobadkeena war waxani waa dajaal bal waa kaas aniga hay dilo mar labaad ma dili karayo mana taaban karaya haddeetooda khalaas war mashaakilka caalamka yaalla wuxuu doonay ha noqdo waxa lagaga badbaadi karaa waa ilaahay macrifadiisa waa ilaahay oo loo soo noqdo waa ilaahay oo loo toobad keeno waa diinteennan macaan oon qabsanno oon ku dhaqanno oon ku camal falno hadday muslimiintu diintooda qaataan yaa bunaya irkab macnaa walaa takun maca alkaafiriin halaagii zamankii nebi nuux adduunyada ka dhacay ayaa ka badbaaday dadkii mu'miniintaee doonta raacay bas war islaamnimadu waa doontii badbaadada weeyaan diinta islaamka weliba siiba dacwadda haddaan dadka khayrka ugu yeedhno oon xumaha ka reebno oon mas-uuliyadda diinada ilaahayna saaray aan u kacnoon xaqayga iska gudno balaayada adduunyada ka dhacaysa ilaahay noo keeni maayo falamaa nasuu maa dukiruu bihi maxaa ku xiga anjayna aladiina yanhawna can isuu waa maxay xanuunkan aad ka baqayso magaalo wada degan qur-aankaa ilaahay kaga warramaya ayaa qaybta dadkii ku noolaana daayeer laga dhigayo khanaasiir qaybta dadkii ku noolaana yihiin bani aadan caadi iska yihiin kuma sheegin qur-aanka ilaahay miya asxaabu sabt dembigay sameeyeen dembigee kalluumaysiga dhaafa baa lagu yihi maalinta sabtida oo cibaadaysta maalintii sabtidee laga yidhi cibaadaysta oo badda ha tegina lagu yidhi ayaa ilaahay waa ibtilayaa dadka laanna adduunku waa daar alikhtibaar weeyaan waxaan adduunyada ka dhacaya waa imtixaan dadka diintoodaa la eegayaa iimaankoogaa la eegayaa halka islaamnimadu ka taagan tahay baa la eegayaa xaggay u yaacaan waa xaggee baa la eegayaa
حقو مؤمن كورد يا بالله إيجيا جماعة السبت والله امتحامي تضمد مالمود لح مالمود كلهم كيبدأ والله كحي أمركوك السعودة أمركوك السعودة أمر إلهي مال انت السبت دي الله حرمين إلهي وحوري صبح حكو أركان بين وما يعلم جنود ربك إلا هو كلهم صبح بحاليا ساسويك ورمال انت السبت دي كلهم كانوا بنانكو يلا حاسبينا قال waxay tiri anagu ka joogi kari mayne wayna la soo baxnaa xeelad baa sameeynaa ilaahay ma la xeeladay kara ilaahay uu daawanaya bini aadanka uu dul qaadanaya laakiin mar hadduu qabto ma sii daayo ilaahay adoonka ilaahay dadka maanta adduunyada jooga waxay ku hadlayaan nuunan maqlayn bay kula tahay waxay sheeganayaan waxay isku nisbaynayaan awooday sheeganayaan muulay maqlay muna arkay uu maqlaya laakiin mar hadduu qabto ma sii daayo qolo ilaahay baan xeeladaynayna bay yidhaahdeen oo kalluunkii badda xadhig shabakii bay ku daysteen sabtida ha noo galo axaddana waan la soo baxaynaa qolona waxay yidhaahdeen annagu maalintaa baddana tegi mayno dadkaana munkarka ka reebi mayno macaabiddaa fadhiyaynaa waan iska cibaadaysanaynaa kanaa'istaa fadhiyaynaa waan cibaadaysanaynaa qolo waxay yidhaahdeen may ilaahay baa la caasinayaa cadhada ilaahay baa imanaysa hadday cadhadu timaadana wayna wada saamayn marka iyagu dacwad bay bilaabeen jamacaddii saddexaad dacwad ba u kaceen dadkay wanaagga fareen xumihii bay ka reebeen waxay yidhahdeen warsadin ilaahay ma ogolo cadhaa iman doonta cadhada hadday timaaddo way nagu wada dhiciye ilaahayna u soo noqda war toobadkeena war waxani waa imtixaan war wax risiqa ilaahay baa bixiya war kalluunka badda ilaahay baa geliyey maanta ilaahay baa keenay 6 maalmoodna ilaahay baa ka dheeraynaya waa layna eegayaa ha sabirno han adkaysanno masaajidana han camirno ilaahay han barinno xaaladda ilaahay baa bedeli doona xaaladdan waa ka bixi doonaa way ku dhawaaqeen way ka dhaga furaysteen ma maqlayna bay yidhahdeen qoladii cibaadada u hadhay kuwii dadka xumaha ka reebayay bay weliba ayakuna ay sii xaqireen oy ku yidhaahdeen qaaluu lima taciduuna qowman illaahu muhlikuhum aw mucadibuhum cadaaban shadiida qaaluu macdiratan ilaa rabbihim walacallahum yattaquun maxaad u dhex socotaan maxaa wax ugu sheegaysaa kuwan halaagooga iyakaa gacmooga ku doonteen diinta way yaqaanaan waxaan inay macsiyo tahay way garanayaan ma inay diin garanayn baad moodaysaa maxaa u sheegaysaa markaasay idhahdeen annaku khayrka ummadda waxaan uga dhex soconnaa munkarkana uga reebaynaa waa laba shay weeyaan dadkani waa muslimiin asalkoogii inay waantoobaan baa laga yaabaa inay ilaahay u soo noqdaan baa laga yaabaa annakana qiyaamaha cudurdaar bay noo noqona waxaan odhanaynaa ilaahayow annaku ummadda dacwaddii waan gaadhsiin oo khayrka waan u sheegnay isberi yeeleen deedna faysaladii baa dhacday faysaladii markay dhacday ilaahay muxuu yidhi falammaa nasuu maa dukiruu bihi anjayna aladiina yanhawna can isuu ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay markay amarkii ilaahay ay diideen nasiixadii waanadii ay dhagaha ka furaysteen kuwii dadka xumaha ka reebayey ayakaa badbaadinay baa ilaahay yidhi dadkii dadka wanaagga ugu yeedhayey xumahana uga digayey kuwaasaa la yidhi iyakaa horta la badbaadiyey baabu najaat albaabkii nabadgelyadaa loo furay doontii nabadgelyaday fuuleen ilaahay wuxuu le iyaka waan badbaadinay kuwii kale miyaa cadaab daran baa ku qaba nebigu ilaahay cadaabka nucuuha wixii dembigaa gaystay ayagoo guryahoodii ku jira waaguna u baryin ilaahay waxau ka dhigay daayar iyo khanaasiir subaxdii magaaladii markii loo soo baxay yaa la yidhi war dadkii ficilka xun samayn jiray hamay maanta soo baxeen waa tanaqalladoodii xidhxidhan cidna ma soo bixin baddiina ma joogaan
horta aqalladii waa laga dhaxalayaa markaasi aqalladii baa loo soo dhawaaday dhagtay u dhigan aqalladii waxaaba ka maqleen sawdkii daayeerka laa ilaaha ila allah subxaan allah falamaa catow cama nuhuu canhu qulnaa lahum kunuu qiradatan khaasiyiin waxba adduunyadoo dhan gaaraya waxba kama jiraan faysaladu meel bay ku socotaa kuwanna ilaahay daayeer buu ka dhigay kuwii kalena waa bini aadan sidoodiiya iimaan iyo camal bay ku nabadgaleen islaamnimadii bay ku nabadgaleen dacwaddii bay ku nabadgaleen xadhiggii ilaahay ay qabsadeen bay ku nabadgaleen munkarka ummadda ay ka reebeen ayaa ilaahay ku nabadgeliyey iyaga kuwii kalena waa laga qabtay caalamka daayeer iyo khanaasiir maalmo yar kadibna cadaab baa yimid oo waa la duubay gebigoogiiba waa magaalo keliya ayaa ummadna lagu halaagay ummadna lagu badbaadiyey marka dacwaddu waa maxay diintoo laga shaqeeyo waa doontii nabadgelyada doonta nabadgelyada inuu fuulayaa u diyaara adiguna fuul ummaddana fuushii adiguna fuul oo ilaahay dartii u bax oo maanta zamankan waa zamankii dacwadda la galay wallaahi waa zamankii dacwadda hadalkaas haddaan miiga la dhex marno oon magaalooyinka la dhex marno oon magaalooyinka caasimadaha intoo jamaacadadeenu lugayn ay dhex maraan oo dadka hadalkaa lagu yidhaahdo qalbigooga qaboobi yaarayta maanta hadallada innagu halkan aan ku haysanno haddii gaalada yurub iyo maraykan ku nool hadallada lagu odhan lahaa way qaboobi lahayn qalbigoogu maanta haddii lagu odhan lahaa ka wax dilo waa ilaahay ka wax nooleeyo waa ilaahay ajal baa loo dhintaa xanuun wax ma dilo nin walba saacaddiisuu qaadayaa tacadadat alasbaabu waalmowtu waaxidun asbaabta loo dhimanaya fara badan mooye mowtku waa mid keliya mowtku qul yatawafaakum malaku lmowti aladii wukila bikum uma ilaa rabbikum turjacuun dhimashaad u dhalatay haddii gaalada lagu odhan lahaa oo la odhan lahaa noloshan way dhammaataa dhimashaday ku dhammaataa aakhiraa bilaamaysa ka saay qaata adduunyada maanta basharku hadalkaa buu u baahan yahay maanta hadalkaas inaan xambaarnaa loo baahan yahay maanta oo la soconno oon intaan gaadhi karno aan jamaacadadayna gaadhsiino oo nidhaano xalka caalamka annaka ahayna mashkiladda caalamka ka taagan war muslimkaa haya maanta ma caddaatay mise ma caddaan ma caddaatay mise ma caddaan waa caddaatay mashkiladda caalamka maanta ka taagan waa maxay waa yaqiin 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 baana jirin xallu lmashaakil waa yaqiin ilahay oo lagu kalsoonaado weeyaan laa ilaaha ila allah mashaakilka caalamka o dhan waxaa xallinaysa waa laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah kelmadaasaa ilaahaynaysa muminku dhimasho kama baqo ilaahay khayrkii kama baqo waxau ka baqaa muminku macaasida adoo caasiha dhiman toobadkeen ilaahay u toobadkeen oo maanta waxaa ka toobad keenaynaa tarku dacwa ila allahi caza wajal ka tegidda ummaddu shaqada dacwadda ay ka fadhiisatay ayaa waxaa mashkilad maanta caalamka taaloo dhan sababay milyoneeradii caalamka ugu maaliyadda badnaa ayaa markay maanta 10 cisho qolalkoodii ku jireen ee arkay balaayiin lacaga ay khasaaray tijaaradoodii khasaartay fooqaqa iska soo tuurayaan isdilayaan maanta dariiqada ku dhimanayaan ayaa u naxariisan maanta ummaddaas yarxamu man fi lardi yarxamukum man fi samaa irxamuu man fi lard waxaan ugu naxariisanaynaa waa maxay laa ilaaha ila allah cumar bnu khadaab allah raalli ka noqday markuu qudus tegayey ayaa nin raahib nasraaniya ayaa lagu yidhi meeshan amiirkii mu'miniintaa soo maraya markaa buu soo baxay ninkii waa raahib dharkiisa ku dul googay jirkiisa nafaqa darra ka muuqata xaq inuu ku taagan yahayna uu isku haystaa
saasuu eega cumar ninkii harigiiyo jidhka iyo lafii baa isku dhegay cumar lilmaa ka daadatay uu ooyay cumar yaa amiira almu'miniin maxaad ma ooyeysaa baa lagu yihi ninkan waa nasraaniya muslim maahe markaasuu waan gartay inuu nasraani yahay laakiin waan u naxariistay buu yidhi dakartu qowla allahi caza wajalla waxaan xasuustay ilaahay kalaamkiisii caamilatun naasiba taslaa naaran xaamiya caamilatun naasiba way camal falaysaa cibaaduu bannaanka ugu soo baxay oo mujaahadada iyo tacabkaa waxa uu leeyahay cibaadaad ku jirtaa xaq baad ku taagan tahay naarna waa ku dhici doonaa buu ilahay yidhi kaas ilaa tawxiid iyo caqiida lama dhimanay sayidina cumar wuxuu yidhi aayaddan qur-aankan xasuustay sida u dadaalayana waan u jeedaa meesha ku dambaynayna waa naar buu yidhi maan u naxayn buu yidhi markaas yarxamuun asxaabtu naxariis socotay noqdeen abu muusa alashcari ayaa cumar u soo diray ergo madiinuu markaa cumar binu khadaab uu joogaa markaasuu yidhi ninkii loo soo diray buu ka yidhi cumar hal min muqarabati khabarin war hariiba ma haysa war hariiba dhulka aad tegteen basro iyo xagga markaasuu yidhi haa waa maxay nin ayaa gaaloobay markuu islaami kadib ayuu gaalnimadii dib ugu noqday buu yidhi markaasuu cumar ku yidhi dee maxaad ku samayseen dee waan soo dhowayno qoortaa ka goynay buu yidhi man irtadda can diinihi faqtuluuhu waa xadiid ninka diintiisa ka ridoobay dila buu rasuulku yidhi markaasuu cumar iska ooyay way anigu haddaan kaa oo nolol ku qaban lahaa oo isagoo nool gacantayda soo geli lahaa ayaan waxaa adduunyada dahab iyo fidda taalla aan ka jeclaan lahaa buu yidhi yaa amiira almu'miniin haddii ninkaa isagoo nool laguu keeni lahaa maxaad ku samayn lahayd adigu bal ii sheeg wuxuu yidhi albaabkuu ka baxay ayaan u bandhigi lahaa inuu ka soo noqday buu yidhi bas soo islaam baan odhan lahaa buu yidhi hadduu i diidana jeelkaan dhigi lahaa cunto fiicanna waan siin lahaa ilaahu ka soo islaamaya buu yidhi haddana jamaaco kale u timid cumar binu khadaab marka rasaa'isha loo keena dowladaha ay furteen ayaa laga soo warbixiyaa markaasuu yidhi bal warrama aawa ninkii hebel la odhan jiray may buu yidhi ninkii hebel la odhan jiray ee mar walba warqadaha ii keeni jiray beryahana maan arkay markaasaa la yidhi yaa amiira almu'miniin ninkii diinta islaamka uu ka noqday shaarib alkhamrina uu noqday baa laga yidhi uu ka noqday diintii haye khamrina meelaha buu ku cabbaa oo ma nool yahay ha meelaha buu weli joogaa uu markaasuu cumar yidhi warqad baa niigu dhiibiye warqaddaa u geeya ininkuna markaad isaga u tegaysaan eed warqadda u geynaysaan ducaystoo qalbigiisa inuu ilaahay xagga islaamnimada u soo celiyo ilaahay u barya buu yidhi warqadda cumar muxuu ku qoray suuratu haafir awaa'ilkeega bismi illaahi araxmaani araxiim xaamiim tanziilu lkitaabi min allahi alcaziizi alcaliim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير آيات قرآن انت اسكليا أي عمر قرنينكي وعلي مركز تغيسانا سلاني قارسي عمر باكو سو سلامي وعمر بانا كاوي دي هذا انت نتغينا ادعي قلبك سلاحي وسوجيدي مركزي جماعات مركزي مادين العراق يا الشام متكود بهاي ayay u keeneen ameerkii Umar baana soo diray warqadan oo ninka loogu soo dhiibay ninkii bay raadiyeen way ducaysteen way u yimaadeen hadiyadna ugu soo dhiibay oo u keeneen markaas ameerkii muuminiinta Umar baana ka weydiiyay marka maniga sakhraanka Umar doonaya ameerkii muuminiinta ka weydiiyay maniga sakhraanka diintiina waxba aan ka oqoon maanta markaas warqadan oo loogu ka soo dhiibay وقدم كلفه حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأخريا وأويا وكعليا
haddana uu ooyaa ilintii ka daadatay jirhkiisa ayaa laabta qoysay halkii buu ka kacay jamaacaddii buu raacay ictanaqa bilislaam masaajidkii buu soo galay toobadiisii baa ilaahay u soo celiyey cumar binu khadaab bay jamaacaddii mar labaad ku noqotay wuxu uhi war ninkii ka warrama waxay amiira almu'miniin ubashiruka sidii iyada tidhi baan yeelnay ninkii ilaahay waa soo celiyey waxaan ka imanay isagoo muslimiinta safka hore ku jiro maskiidka camar ayaan ka imanay yidhahdeen markaad aragtaan nin muslima oo diinta islaamka ka simbiririxday sidaa ula dhaqma buuhi cumar binu khadaab sidaas u duceeya oo aayadaha qur'aanka ee dadka ilaahay raxmadiisa jeclaysiinaya dushooda ku akhriya cumar binu khadaab radia allaahu canhu habeenkiibuu seexan waayey maalintiibuu seexan waayey mar alli markuu shuurada fadhiisto ayay hurdadu qaban jirtay markaasaa lagu yidhi yaa amiira almu'miniin habeen ma seexanaysid maalinna ma seexanayside maxaa ku helay bal noo sheeg wuxuu yidhi maalintii haddaad seexdana xaqii ummaddu ay igu lahayd baan dayacay habeenkii haddaad seexdana xaqii ilaahay igu lahaa baan dayacay buu yidhi ummaddan maanta fikir bay u baahan tahay ummad walaalayaal dad murugoodaa loo baahan yahay dad isxilqaadaa loo baahan yahay dad diinta u kacaa loo baahan yahay dad maalkooga iyo naftooda ilaahay diintiisa ku bixiyaa loo baahan yahay dad yiraadaa loo baahan yahay aniga maanta laga bilaabaa maalkayga naftayda wakhtigayga diinta ilaahay baan ku bixinayaa insha allah yaasaa niyooda wallaahi haddaan niyoonno maaha dalkan oo keliya waxaan u soconno caalamka o dhan baa maanta la rabaa in loo gurmado caalamka o dhan hay-adihii la odhan jiray hay-adaha deeqbixiyayaasha hay-adaha samafalka hay-adaha ka hortagga dabiicooyinka masiibooyinka dabiiciga ayakaa u baahan maanta in loo gurmado kuwaas oo la yidhaahdo laa ilaaha illa allah dhahada waad liibaanaysaane koonka ayaa ka taliya ilaahay baa ka taliya dhimashadana ilaahay baa haya dhimashada amar ilaahay baa loo dhintaa amar ilaahay baa lagu nool yahay amar ilaahay baa lagu dhashaa adduunka waxa ka dhacayana xagga ilaahay meela dhinaca kale waxba kama yimaadaan basharku maanta dacwaddaas u baahan yahay dacwat alxaq dee risaaladdaa ma xambaarnaayo ma dhaqaajinaa insha allah dhahada haddaan risaaladda u kacno dalkana balaaya ka dhici mayso waddanno badana ilaahay sababteena ku badbaadin balaayo ilahay inuu naga rafaco ilaahay naga ilaaliyo sooma rabno haa dhahada dee laba camal baan haysanaa dacwad iyo ducaan haysanaa addacwa waadducaa addacwa waadducaa dacwaddana waa kii lagu sheegay la yidhi anjayna aladiina yanhawna can isuu ducana waan haysanaa rabbi innii masaniya duru wa anta arxamu araaximiin haddaan ducooyinka ku ducaysanno oo ducada sunnaha nebi maxamed aan raacno balaaya nagu dhici mayso waxaa masaa'ib maanta caalamka laga sheekaynayo o dhan ducada guriga lagaga baxo o dhan baa ku filan ducada guriga lagaga baxo bismi illaah tawakkaltu cala allah war bal dhahada tawakkaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billah balaayo o dhan ducadaaba kaa xijaabaysa baahidaadina ducadaabaa lagugu daboolaya bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shay fi اlardi walaa fi الsamaa wa huwa samiicu caliim laakiin waxaan la mid noqonay maanta ninkii xerowga ahaa ee yaa xadu yaa qaduum sida carab jabaqada ku akrinayay xerowgii baa macallinka ugu yidhi macallin siduu leeyahay malaha maqbuula war may ninkani maqaam buu gaadhay buu yihi maqaam war mashkiladda maanta caalamka taalla yaa ahla dacwa yaa ayuha almuslim waxaa kaga bixi karnaa inaku ummaddana kaga bixin karnaa ilaahay oo xadhiggiisa qabsana dacwad iyo duco diyaa labadaa u diyaara